ما أحلك يا رمضان، أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى. يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا مهدسك له عافيمات كينيسي إنه نرداقي نمعين كيسكات وفراد بضله نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة العافية. الحمد لله بن لان هاي إن شاء الله موضوع يرى لبا طريقة 6 طريقة بحين أهل دونا قفك إنه ظني يسوون أجيو إنه حكف في عن هذه الجار وحكايه. diinteenu islaamku in badan bay nagu boorisay inaynu wax ka fiican wax ka eegno oo malaheenu wanaagsanaado. Allah subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min addan ina bacda adanni ithm. dadka iimaanka low ka fogaada danniga malaha xun intaad ka fogaan kartaan. ina bacda adanni ithm, malaha qaybtii ama barhkii waxa weeye dembi wey. marka malaha iyo waxa aad malaysanayso wax wanaagsan ha noqdaan. abi hurayra allah ka laali noqday waxa uu leeyahay rasuulka soo wariyay iyaakum wadann fa ina adanna akdabu alxadiis. waxaan idinka digayaa buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam leeyahay danniga iyo malaha. fa ina maxaa yeelay adannu maluhu akdabu alxadiis, war la sheego ka ugu beenta badan. inaad wax ka malaysato shay inaad ogeyn, shaygaa ka waran, shaygaas waa saas yacni mala xun ka dhiibato. malaha xun oo dembi oo kale inoo sheegayo ma fiicna. malahaagu inuu wanaagsanaado, hadday islaam tahay, qof mu'mina tahay, malahaaga had iyo jeer wanaagsan oo noqo qof had iyo jeer xagga wanaagsan wax ka eega. hadaynu tusaalayaal dhowr ah oo caadiga maxaynay soo qaadano. haddii aad dibadda joogto oo banaanka socotid suuqa, dannigaaga wanaaji, wax walba aragto xagga kale inay kaala beerin. haddii aad miskiid joogto, dannigaaga iyo wax aad malaysanayso wanaaji. everywhere, meel kastoo joogto xagga fiicanna wax ka eeg. marka miskiidada la joogo badanaa dadku way isku gafaan, ama odayaasha inaga waaweyn ha noqoto. intaynu soo qaadano waxaad arkaysaa qof dhalinyar oo mobile isticmaalaya, kaab kula soo boodaya odayga ama qofkii kale ka yar weynaa waxoogaa mobilka miskiidka ka daa. maxaa yeelay waxa uu ka fikiraya in waxyaabo kale ku qabanaya mobilka, laakiin xusnigiisa iyo dannigiisa hadduu wanaajiyo yidhaahdo mobilka ninkaas waxbuu ka akhrisanaya ama cashir u faa'iidaa ama qur-aankiisa oo ka diyaarsanayay, yacni way fiicnaan lahayd. mar haddii jeer waxaynu soo qaadeen tusaalahaasi way nagu badan yihiin dhalinyarta. hadday mobil miskiidka kula soo baxdo ciddii kaa weynad garanaysa wax say kuu galayso, miskiidka ka xidh baa lagu dhayaa mobilka. يعني هدو yahay wax dadka salaada fasahaadinaya oo salaad lagu jiro keedii wax ka akhrisanayso kale. yani marka waxaan ugu jeedaa inaad had iyo jeer meel kastoo joogto dannigaaga aad wanaajiso oo dhinaca wanaagsan aad wax ka eegto. haddii aad aragtay shay kugu qariib ah, inaad xagga xun ula dhaqaaqdo ma inaad xagga wanaagsan ula dhaqaaqdo. walidaalik haddii aad rabto waxaa la yidhahdaa naftaadu inay deganaato, xasilooni ay fiican hesho, naftaada ku hag inay had iyo jeer xagga fiican wax ka eegto. haddii naftaadu tahay mid xagga xun wax ka eegaysa, naftaadu degi mayso. saabay yidhaahdaan dadka qaari, naftaadu degi mayso. yani marka had iyo jeer xagga wanaagsan wax ka eeg oo xagga wanaagsan wax u dhaqaaji. diinteennu ay ka hadashay in badan inayn xagga wanaagsan wax ka eegno. mawduuceena dheerayn mayno. allah subxaanahu watacaala inaga dhigo ku xagga wanaagsan wax ka eega had iyo jeer. waynu ognahay dunidaynu ku jirno, haddaad xumaan la timaado waad ku shacbaxaysaa, haddii aad wanaag kula timaadana cidna warkaaga hayn mayso. oo hebelkii koofiyadda weynaa ama khamiiska weynaa waa lagu odhanaya. allah subxaanahu watacaala haynagu kaalmeeyo inaynu xagga wanaagsan wax ka eegno oo markaste aynu wanaagaas aynu tiigsano, xagga wanaagsan wax ka eegno. intaa ayaa mawduuceena yar kusoo koobaya. dheerayn mayno, badanaa waynu soo koobaynaa si aynu wixii u fahno. intaanid sheegin waxaa la yidhahdaa naftaada ku bar. anaa inila hadlaya insha allah naftaydan ku dhaqan gelin in aan hadii jeer xagga wanaagsan wax ka eego. iniga ay daawanaya naftaada ka bilow oo naftaada ku dhaqan xagga wanaagsan wax ka eegtid. dadkana sii gaarsii, dadkana sii far
si ayagana uga faa'iidaystaan. Inta ayaynu mawduuceenu kusoo koobaynaa. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.